بسم الله الرحمن الرحيم وولالكي سعيد إليك أو جوجة magaalada Dubai wadanka Imaaraadka Carabta waxaan rabaa caawito inaan maaragtay duubo video oo ka bedelan fiidiyadii hore la iga bartay videogaas waxaan isku dayay inaan maaragtay aan maaha Soomaaliga dhowr maahmaahooda halkaan ku soo qoray inaan fasiro waxa ay u kalifay waxa weeye aniga 7 sano ku dhawahay anoo 17 sano jiraan magaalo galay caruurtayda 40 jir ah ma garanaysaa magaalay ku dhasheen caruurtooduna magaalay ku dhasheen marka maxaad u maleynaysaa marka afkii iyo dhaqankii iyo maartay meesha ay marahayaan xaqiiqatan hameen dhaxdaas waxa weeye dhalinyaro waxa igu dareen maartay WhatsApp bay igu dareen WhatsApp markay igu dareen anigu kama codsan ayaga ii gartay markay igu dareen wax allaala waxay ku hadlayaan boqolkiiba 30 kaliya ka fahmaayo maar sheekooyinka ay ku sheekeynayeen ma garanaysa boqolkiiba 70 ma fahmaynin garanaysa qobox igu dhex iyo xagga igu dhex iyo waa shidan tahay iyo waa xagga tahay wax aan fahmi karo waa noqon waayeen marka waxa weeye bahro inaan dhalinyarada maartay xasuusiyo insha Allah dhalinyarada inaan maartay dhaqankii maartay wax ka xasuusiyo marka maahmaahayana ana iska soo qorqoray inaan fasirana rabaa marka inay qalad yihiin waa dhici karaan wixii qalad ah maartay diraal la iga ahaado anigu ma garanaysaa suugaanta iyo dhaqan umalihi ma garanaysaa ama aqoon umalihi ma garanaysaa waxbarasho umalihi aniga background-kay waxa weeye waa accounting weeye management and accounting waan bartay maamulka xafiisyada iyo waxaas marka maartay suugaantay waxaas maartay aqoon umalihi oo magaranaysaa maartay jaamacad uma gelin oo magaranaysaa gabayaan ma noqon oo heesaa ma noqon oo fanaan ma noqon oo marka waxa weeye waxaan maartay ku talin qof kasto inaga naga mid wixii dadka u kordhin karo inuu u kordhiyo marka waxaan rajeynayaa maartay in arintaani maartay idin fiici doonto dhalinyarada hadda tihiin inayna dhaqankiina ka tagin inayna diintiina ka tagin ma garanaysaa oo ma garanaysaa adduunyadan maartay idna ku dayan 2019 baa la mara 2020 baa la mara ma garanaysaa 2021 la mara hadii la marayo dadka marayo hadda daba socotaan isku diin ma tihiin isku dhaqan ma tihiin ma garanaysaa marka suugaantiina iyo dhaqankiina iyo diintiina inaad maartay barataan ayaan maartay idin kula talinayaa ma garanaysaa marka wixii ma garanaysaa khaladahooda ku aragtaan arintaas ka raali ahaada ina soo saxa oo maartay hal saxo commentiga iyo saas oo kale qof kasto inaga idin ka miran waxaan ka codsanayaa inuu maartay qof wuxuu yaqaano uu maartay dadka baro oo social media la wadaago ma garanaysaa sidaas maartay dadkeena aan ku anfacayna ma garanaysaa maaha inaad noqoto sanduuqul amal ma garanaysaa sanduuq oo maartay cilmiga lagu quflo sanduuqul cilmi inaad noqoto lama rabo ma garanaysaa waxa la rabaa maartay waxa kugu jira banaanka usoo dhow maartay meediyadan iyo social media alla noo sakhiray inaynu dadka ku anfacno ayaa loo baahan yahay ma garatay marka insha Allah waxaan kaloo idin ka codsanayaa inaad maartay mahmahayaal iisoo aniga xogaagaan hayay waa iga dhamaadeen ma garanaysaa 20 iga dhamaadeen wixii aan soo xasuustana waa qori doona haday maartay sheekada u bogtaan hadii loo bogay aniga hadii kalena comment halay soo sii hadaan loo bogin waa idin ka daynaya ma garanaysaa hadii loo bogana waa wadaya marka insha Allah hadii loo bogo halay iga soo kaalmeeyo mahmaayaha la iisoo gudbiyo waan fasirayaa hadii alla idmo marka insha Allah marka mahmaayaha video baan ka duubayaa marka YouTube kan gelinayaa hadii alla idmo hadana maartay waxaan maartay ku wareejinay hadii alla idmo Facebook live-ka marka insha Allah commentigiina maartay hal helo bismillaahir rahmaanir rahiim waa bilaabaya aan ciwaan uga dhigay fasirid mahmaahda Soomaalida okay mid ugu horeysa waxaan iri nin aan ku furi doonin yuusan ku rarin mid kale waxaan idin ka codsanayaa inaad fiiro gaar u yeelataan Soomaaliga saan u qorayo
soomaalida markay maarata af soomaaliga qorayso waa la yaabaa ma garanaysaa khaasatan spaceka maarata meesha spaceka u baahan iyo meesha kale iyo xarakada meesha koomada u baahan iyo full stopka iyo say isu raacayaan iyo soomaaliga waxaad moodaa in maarata qof maarata la iska qorayo un oo haddana in la khaldo iyo inaan la khaldin ay maarata si different lahayn maarata iska qor marka geel ba aw yaa kule maarata looma baahna afka waxaa la rabaa inaan maarata aan baranaa loo baahan yahay waan naqaanaa maarata ku hadalkiisa wanaagsan qoristiisa inaan barano marka sidaan aan wax u qorqorayo maartay fiiriya haddii maarata xataa wax ka khaldan yihiin maartay waa isixi karnaa okay midda u horeysa waxaan idhi nin aan kuu furi doonin yuusan kuu rarin marka jumla ahaan macnaha inagu maadaama reer baadiye nahay oo dhaqankii reer baadiye nahay inagu awr baanu raranaa marka reerku guurayo awr baa lagu raraa dhaanka maarata waxaa lagu raraa marka guud ahaan macnaha waxay ka dhigan tahay macnaha nimaan maarata ratiga hadhow kuu furayn yuusan hadda kuu rarin laakiinse murtida ku jirtaa waxa weeye qofka kula talinahaya waxa uu kugula talinahayo wixii ka dhashay hadduusan kaala qayb qaadanaynin dee ha ka yeelin ma garanaysaa soomaalida kuma imaadaa habar maaragtay habar fadhida lagdan la fudud gabar baa gabar u imaanayso dahyada min lagaa bedelo dahab laguma gadino taa ninka maxaad u ag fadhidaa taa ninka keer maxaad u yeelaysaa hadhow markay ninkii ku boodoo la furan waxay leedahay wadada iska day bay ku leedahay waa kugu qoslaysaa marka waxa qofka rag iyo dumarba qofka kula talinaya adiga kula talinaya talada uu ku siina wixii ka dhashay ma kaala qayb qaadanaya hadduusan kaala qayb qaadanayn hala tashanin marka taas wey macnaheedu nin aan kuu furi doonin yuusan kuu rarin okay waxaan ku xijiyey waxa la yidhahdo guntin caraabo ninkii xiraa fura guntin caraabo ninkii xiraa fura macnaha tan oo kale waxa weeye reer baadiyu markay guurayaan aalaba subaxdii bay guuraan laakiin marmar waxaa dhacda inta arrin emergency timaado in galab la guuro galab marka galabtii marka la guurayo ninka ratigu raray oo gurid walba meesha uu ku xiray yaqaana ayaa hameenkii waa meel hameennima la degaya waa mugdi markay tahay xargii lama yaqaana yaa si fiican u furi karo oo si fiican u yaqaana ninkii galabta soo raray baa si fiican u raray ma garaysaa marka wuxuu yidhi guntin caraabo ninkii xiraa fura marka waxa weeye soomaalida wax kaloo dhahnaa jini ninkii keenaa bixiya macnaha arrin ninkii maaragtay yaqaana in looga dambeeyo baa loo baahan yahay ma garanaysaa arrin ninkii yaqaana ama arrin ninkii asagoo maaragtay keena asaga ayaa loo daayaa ma garanaysaa oo ma garanaysaa wixii ka yimaada iyo maaragtay taladeeda loo daayaa ama maaragtay arrin ninkii yaqaanaa loo daayaa ma garanaysaa okay waxaan ku xijiyey waxa la yidhahdo toojo nin lahaa maala toojo waxa weeye hasha maarata toodka weeye geela waxaa jira markay dhalaan ama mar kastaba hal in la liso diida oo haraati miirana oo maaragtay marka hashaas toojaa la dhahaa toojadaas marka waxaa caanaha ka lis yaqaana ninkii iska lahaa oo sida loola dagaalamo iyo meesha laga galo iyo yaqaan nin haddeer galabta caaw geela u yimid ma lisi karo ma garanaysaa toojo nin lahaa maal marka wax kastana waa saas oo kale mobile haddaa qof kuu dhiibo maarta isagaa kaa furi oo meesha laga fura isaga oo meesha laga gala isaga oo ma garanaysaa marka wax walbaba qofkii ehel u ah baa yaqaano ku fiican weeye qof walba wuxuu ehel u yahay in loo daayo baa loo baahan yahay ma garanaysaa sidaasaa laga wadaa intaan hadda markii ma garanaysaa hadda madax la magacaabayo kale waxaa fiican qofku inuu maartay shaqada loo igmanayo inuu cilmigeeda u leeyahay baa fiican ma garanaysaa ka soco wuxuu yidhi halkaana nin maqan tabistiis waa nin jooga caydiis u fiirsa halkaan nin maqan tabistiis waa nin jooga caydiis matalan laba nin baa walaalo ah mid baa meel u safray kii kalena waa joogaa waxbaa dhacay markaasaa la leeyahay alla ninkii hebel ahaa baa maqan hebel hadduu maanta jooga hebel baa arrintaa furdaamin lahaa oo kale rogi lahaa oo kale waxayn lahaa marka waxay ceeb ku tahay kii walaalkiisa ahaayoo joogay bay ceeb ku tahay ma garanaysaa inuu ninkaasi ninka ka liito
bay arrintu muujinaysaa ma garanaysaa inuu ka liito bay tusinaysaa ma garanaysaa marka waxa weeye nin maqan tabistiis waa nin jooga ceebtiis sidaas wey macnaheedu okay halkaan soo fiiri mahmaada anigu waxaan maqlaan sheegaya ma garanaysaa meeshaan raba aan ka keeno wuxuu yidhi halkaan dameer laba ku dhufo labana ku dhaanso dameer laba ku dhufo labana ku dhaanso macnaha waxa weye dameer laba haamoodna ku dhaanso laba uloodna ku dhufo asxaan kale hawgeli wey macnaha dameer laba uloodna ku dhufo laba haamoodna ku dhaanso marka waxaa tanoo kale loogu mahmaahaa qofka shay manfac u leh aan danaynin ma garanaysaa gaaraha jooga dowladda iskale dowladda markuu iska leeyahay marka waa iska cayrsanaysaa qaraarax taayir hadduu ka banjaro dan kama lihid dhigu hadday furtaan dan kama lihid magarata ilaa uu kaa istaago iyo wax kastoo lamid oo nacfi leh waxaa loogu mamaahaa qofku shay nacfi leh inuu maaragtay uu xanaaneyn waayo oo ilaalin waayo oo maaragtay hagaajin waayo oo iska wato oo manficiisana uu rabo waaristiisana uusan danka lahayn ma garanaysa waaya waxaa ku xiga xaajo ninkaan ogeyn indhuhu faraha ka geliyaa sida tooskaas wey macnaheedu xaajo ninkaan ogeyn indhuhu faraha ka geliya macnaha waxa weye garbaa socota waxbaa socda marka qofkaan hawlaha la socon ma garanaysaa wuu khaldaa weye wuu xumeeyaa wuu walaaqaa ma garanaysaa wuu walaaqaa marka waxaa fiican wax walbo ninkii la socday inuu maaragtay looga dambeeyo ayay ku fiican tahay okay waa wadanaynaa haddaad qof barashadiisa rabto jid la mar ama jidiin la cun ama jabad la deg buu yidhi haddaad qof barashadiisa soomaalida waxay dhahdaa haddaad nin barashadiis rabto bay iska ahayd marka nin iyo qof gabdhahan ha soo galeenba ma garanaysa haddaad qof barashadiisa rabto jid la mar ama jidiin la cun ama jabad la deg marka saddexdan jimla aan fiirino jid la mar waxa weye safar la gal qofka haddaad wada safartaan waa isbaranaysaa jidiin la cun waxay haddii nacfi idin dhex maro bakhaylnimadiisa iyo hunguri weynidiisa iyo raganimadiisa iyo khiyaarnimadiisa waa fahmaysaa okay ama jabad la deg jabadka waxaa la dhahaa sidaba maarata xeradan maarata xoolaha lagu xareeyo oo maarata iska burbursamna la dhahaa marka waxaa laga wadaa ama meel la deg oo guri la deg baa laga wadaa makaraysa marka aan ku cesho haddaad qof barashadiisa rabto jid la mar ama jidiin la cun ama jabad la deg ama safar la gal ama nacfi haydi dhex maro ama daris la noqo wey haddaad qof barashadiisa rabto saddexdaas haddaad qofka la noqoto waa wuxuu galay wuxuu gado waa baranaysaa okay tanaan ku xijiyey wuxuu yidhi meel hoo u baahan hadal wax kama taro ma garanaysaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro macnaha way qof baa kuu yimid waa ooman yahay waa gaajaysan yahay marka maxaa loo baahan yahay ninkii qofkii wax loo dhiibo u baahan yahay in lacag la siiyo biyo la siiyo cunto la siiyo laakiinse wallaahi maaragtay haddaad xagaagii dhawaad ii imaan lahayd annagu reero deeqsiyaanu ahay maaragtay dahab baanu ahaan jirin adiguna nin fiican baa tahay waxaasoo dhan qofkaas uma baahna ma garanaysaa marka meesha markay nacfi u baahan tahay in wax la dhiibo loo baahan yahay hadal waxba ma tarayaan wey ma garata okay tanaa la mida iyaduna nin haraadan biyahan hoobaa deeqda qof hadduu haraadan yahay biyahan hoobaa deeqda wax kale uu kaaga qancaya ma jiro okay halkaana maxay dhaheen fara aan dufan lahayn wax ma duugaan fara aan dufan lahayn wax ma duugaan macnaha waxa weye waxqabadka sideeda biniaadanka waxqabadku wuxuu u baahan yahay maarata nacfi marka waxaa soomaalida lagu mahmaaha laaluushka ayaa loogu mahmaahi jiray marka laaluush wax wanaagsan maaha laakiinse sideedaba qof haddaad bintan qof baa shaqaalo kuu ah qofka kuu shaqeeya dhaqaalee xanaanee lacagta alla maarata kula shaqeeyey wax ka sii ma garanaysaa qowl wanaagsan kula hadal marka waa dufankii oo kale waa marka saasaa laga wadaa ma garanaysaa faro aan dufan lahayn wax ma duugaan faro qallalan waxba ma duugayaan wey ma garata okay waa wadaynaa
ballan cawaysin kalahaad arooriyay leedahay bay leedahay ballan cawaysin kalahaad arooriyo bay leedahay macnaha waxa weeye cawaysinka waxa weeye hambarkii weeye hambarkii odaga aabbaha caawa hadduu kula dartaan muu kilmaan dhow berri subax ka lah oo magaaladaas aad oo sokor iyo maaragtay biyo iyo bariis iga soo gad waxay imaanaysaa inay subaxdii aad maaragtay subaxdii inaad ka lahdo ayaa imaanaysa magaraysa taasna waxaa la mid a dardaaran macnaha qof haddii meel loo diro dee waxaa ka dhalanaysa inuu maaragtay meeshii aado salaadii u baxo aroortii u baxo ayaa ka dhalanaysa okay waxaan ku xijiyey waxa la yidhaahdo wiil wuxuu hiil kaaga baahan yahay markaad habarti doonayso markaad hooyadii doonayso ma garanaysaa wiil waxaa laga wadaa marka midaan waxaa lagaaga wadaa ama wiil ahow ama gabar ahow qofka aad guursanaysid inaad quality ku guursataa lagaa raba quality qiimo dun dadnimo inaad ku guursataa loo baahan yahay ma garanaysaa marka haddaad wiil tahay oo gabar fiican oo dun leh oo maaragtay reerkoodu khiyaar yihiin haddaad guursato dee wiil khiyaar ay kugu dhalaysaa wiil khiyaara ayay kugu dhalaysaa gabadhuna waa sidoo kale gabadhu hadday guursato wiil fiican oo khiyaar dhalay oo reer khiyaara hadday guursato dee caruur khiyaara u dhalanaysa ma garaysa marka waxaa leeyahay wiil wuxuu hiil kaaga baahan yahay markaad habarti doonayso waaya ninkii soo joog laga waayo soo jiifaa laga helaa okay matalan nin baa maaragtay reer u farabaxsaday oo dagaal iyo qajajac iyo oo maaragtay gardarro inta qori qaatay la booday bas waa la soo dilay markii la soo dilay waa taas way noqonaysaa shala soo joog baa laga waayay haddana meeshuu kuu jiifaa isagoo meyda ayuu meesha kuu jiifaa ma garanaysaa iyo wax kasta ma garanaysaa qofku intuu maaragtay gardarro ku dhaqaaqo hadha uu jab ka soo gaaro oo dhan baa soo gelaysa ma garanaysaa waayahay wixii hoostaada seexda hortaada ka day waxaa layga raali ahda halkaasoo kale haddii kelmadaha maarata xoogaa iska yara qaabta raadaan wixii hoostaada seexda hortaada ka day macnaha waxa weeye ninka ragga ah ilmihiisu alaaba waxay u ekaadaan hooyadood bay u ekaadaan marka waxa weeye haddaad ilmo qurux badan rabto islaan qurux badan guurso ma garanaysaa haddaad ilmo qurux badan rabto islaan qurux badan guurso gabadhoy adiguna haddaad ilmo qurux badan rabto nin qurux badan guurso saasaa laga wadaa maarata saasaa laga wadaa kolleyba de quruxduna maaragtay ma aha in maaragtay shareecadu waxayna bartay gabadha maaragtay in maaragtay marka ugu horeysa ama wiilka diinta lagu guursado ma garanaysaa saas oo kale marka waa mahmahdii un baan ka wadaa ma garanaysaa waaya wuxuu yidhi haddana laba oodafo ma kala abaal weydo marka ujeedadan mahmahda u keena waxa wey inaan vocabulary-ga dhalinyarada baraan rabaa vocabulary-ga erayada inaan baraan rabaa magarata ay fahmaan marka fadlan hadday arrintaasi idi anfacayso iisoo sheega haddayse idi anfacayno waa idinka daynaya marka oodafada waxaa la dhahaa xoolaha baadiyaha reer baadiyo markay baadiyaha degaan xoolaha xeraa lagu oodaa khaasatan ariga xeraa lagu oodaa si aan dhurwaaga iyo bahalka iyo ugu soo dhicin oo maaragtay xooluhu dareeri marka iridda xooluhu ka galaan ood baa la dhigaa haddana mid kalea laga korgeeyaa labaa laysdul saaraa laba oodaf ayaa laysdul saaraa waaya marka qoraxda markay dhacday ood baa la dhigay tii kalea la dul dhigay waagu markuu baryo maxaa dhacaysa tii koraa la qaadaya waa la dhiga dhulkaa la dhigaya tii kale oo horeysay baa la dul saaraya marka labada oodafo midna habeenkiibay koraysaa midna maalintiibay koraysaa marka saasoo kale qofka bini-aadanka walaalkaa ah haddaad maanta u baahan aduu sow kuu baahanya adna baraa u baahan tahay laba oodafoo kaleati laba oodafoo midba maalin koreynayso ayaa tahay marka weliga ayaa allaha qof walaalkaa ah maaragtay ha dayicin ma garanaysaa soo dhawee waxaad la qaban karta la qabo hagaaji ma garanaysaa halkaasaan taas uga baxay ninkaa xoog badan hortaabuu xanaaqaa waa ujeed taas waa iska caddahay ma garanaysaa
ninku hadduu kaa xoog badan yahay xanaaqu sanku ka saarsaaran yahay marka sanka ayuu ka saarsaaran yahay waayo wuxuu ogyahay inuu kugu tuman karo ogyahay markaas inuu kugu tuman karo ayuu waayo haddee waagaasna waxay u badneen waagaan hadda hubkii waxba jirin hadda beebasheeba inta qaadataad ilgoofka ku dhufanaysaa moogta xoog xataa wax ma taraayo moogta hadda ma garanaysaa marka waagaan hubkii waxba jirinoo lagdanka iska ahayd bay isaga badnayd ma garata okay kaasna halkaasaan kaga baxay okay halkan wuxuu yidhi cudud caana gaabsheen cagaar ma koriyo cudud caana gaabsheen cagaar ma koriyo waxaa weeye halkan cudud waa garanaysaa waa gacanta maarta halkaas maarta cududda waa naqaanaa xoolaha marka loo isticmaalo waxaa laga wadaa neefka yarkaa markuu dhasho hadday nirig dhalato ama weyl dhalato ama waxar dhalato oo marka yareen caanaha lagu yareeyo waxaa rabaa maarta ilmuhu yarkaa maarta xoolaha markay dhashaan in maarta hooyadu ay si fiican u nuugaan oo caanaha aan laga yarayn oo maarta caano badan ay nuugaan oo ay kobcaan marka uu daaq gaarana markaas uu israacayaa neefkii laakiin haddaad afarta naasba ka maasho oo maarta markii caanaha ku kori lahay caanihi aad ka yarayso hadhow daaq kasta uu cuno ma koraayo ma garanaysaa daaq kasta uu cuno ma koraayo ma garanaysaa saas oo kale marka wixii kaloo aad maartay lamid maartay saas oo kale waa lamid marka hooyooyinku xataa laftooda inay ilmahooda nuujiyaan oo maarta caanaha hooyadu maarta waa caafimaad waa dawo inay ilmaha nuujiyaan oo maarta koriyaan magaras hadhow cunuga wax caqli badan oo wuxuu noqonaya takhaatiirta waxay dhahaan wax caqli badan oo buu noqonaya cunuga caafimaad badan oo saas oo kale magaranaysa marka saasaan ka iri waa ka socday okay laba nin oo walaala ah midkii lacag lahaa weyn magaranaysaa waa lagu heesay xataa waa lagu heesaa laba nin hadday walaalo tahay midkii lacag lahaa weyn laba nin baa walaalo ah midna waa faqiir midna waa xooluu leeyahay marka aalaaba waxa taladiisa la dhegeysta loo dhagraaraya ninka xoolaha leh waayo waxaa la ogyahay inuu wax kala furdaamin karo oo marka dhaqaalaha la isku haysta laba nin baa war anaa ku siinaya ninka ka fuq uu leeyahay magaranaysaa orodoo ka har ninka anaa lacagta ka qaado lacagta marka bilaadanku maarta wuxuu maartay aad iyo aad ugu dhaga furan yahay qofka lacagta leh ugu furan yahay marka lacagta marka walaalayaal waa in la shaqaystaa maxaa ka macnaa lacag maxaan ku falayaa lacag maxay tartaa everything is not money magaranaysaa kulli everything is money ila aljanna magaranaysaa everything is money ila aljanna magaranaysaa lacagtu waxa weeye waa muhiim weeye magaranaysaa waa muhiim walaal waa muhiim weeye wax weyn bay tartaa marka la si xalaalaha kugu soo gasho si xalaala oo dad toosan ilaahay raali ka yahay ha kugu soo gasho haddii kugu soo gali weysana dee ilaahay ugu samir oo waxaad ogaataa adduunka markaan adduunka ku noolahay ninkii xoolo la siiyana waa la itixaamay ninkii faqiir laga dhigana waa la itixaamay ma fahmaysaa waxa weeye matalan adiga haddii itixaan lagaa qaadayo oo laba nin atiino nin ingiriis lagu itixaamo nin xisaab lagu itixaamo oo goolkeenu yahay inaan baasno dee wax farqiya ma laha magaraysa baasidii baa muhiima marka adiga xoola haddii lagu siiyo xoolihii sida ilaahay ugu talagalay oo isticmaal maartay dadkaaga ku dhis masaakiinta wax ka sii qaraabadaada ku xariiri magaraysaa markaad waddadii ilaahay kugu talagalay aad mariso ilaahay maartay waa kugu jannaynaya insha allah meel fiican baad gaaraysaa haddii uu fakri lagu fakriyo aad xoolo weydana 10 dabaq iska soo tuurini waxa weeye fakrigaas ku raalli ahow fakri haddaad tahay macnaha siir mani aad tahay waxba haysan fakri matiida isla soco haddaad adigu aad fiican tahay oo aadan lacag haysan laakiinse ogow mid baa indhala adigu laba indhood baa haysataa mid baa gacan baad haysataa mid baa salka ku gurguuranayo curyaana labadii lugood baad leedahay marka waxa way saa u ogow ma garanaysaa marka adiga wixii alla kuugu talagalo raalli ku ahow hadduu xoolo ku siiyo labada itixaana runtii waxaa lagu baasi ogyahay maarta itixaanka fakriga lagu baasi ogyahay weligaa ay allah u fiir dadka xoolaha leh ma garanaysaa waxa weeye waa gabgabtoodu waa badan tahay ninkii ilaahay u naxariistay mooyaane okay kanaan kusoo gabagabeynayaa wuxuu yidhi miro gunti ku jira kuwa geed saaran looma daadsho miro gunti ku jira kuwa geed saaran adoo miro wata
oo miraha ay guntiga kuugu jiraan intaad fariisatay markaa geedka saaran baa soo guranaya dee xigmad ma aha taas waxaa la mid a resource aad haysato intaad iska dayso inaad tiraahdo mid kale aan raadinaya mid kale baa raadinaya ma garanaysaa nin baa wax gaari baad haysataa shaqadaad ku tagtaa waa kugu filan yahay 30,000 buu kuu joogay oo maartay dollar ama 10,000 oo dollar waxaad leeyahay calawi baan gadanaya 100,000 oo dollar oo kale saas oo kale ma garanaysaa kolay dee shaqadaad ku tagay shaqadana waad ku tagtay ma garanaysaa adigu wax kastaba fursad aad haysato ha iska dayicin oo midaadan haysan ma garanaysaa ha raadinin ma garanaysaa dhalinyarada hadda Soomaaliyeed waxaan aniga kula yaabaa waxa weeye tanoo kale shaqooyinka hoos oo dhan ma ogola qofka hadduu secondary ka baxo bas jaga oo maareeya ka yar ma ogola war waxaan kuu soo arkay kabalyeeri war waxaas anigu kama shaqeeyo war waxaan kuu soo arkay darawal war waxaas aniga hay dhihin ma garanaysaa adduunyadu ma garanaysaa waxa weeye shaqadu jaran ay leedahay ummadahan kale waxaad arkaysaa nin baa imaanaya waa PhD holder wixiisa dhan waa qarsanaya shaqo soo raadinaya waxa leeyahay waxba lama hayo waxa la hayaa nadiifiya xafiiska war nadiifiyahaasaan rabaa buu leeyahay nadiifiyii buu galayaa markuu bil tirtiraa leeyahay war karaani baa loo baahan shahaadadii karaanigu la soo baxaya waa wadaya 5 bilood markuu karaani ahaado baa leeyahay waxa loo baahan yahay xisaabiye mid ka sareeya tii xisaabiye la soo baxay ilaa uu xafiiska qabsado marka walaalayaal dhalinyarooy waxna aan baranno shaqadan ayaa laga faan waa idinla socdaa kulligiin meel kastaba jacayl iyo snapchat iyo gabar baan ka daba ordaya baa lagu waashay gabadha maxaad u tabcatay maxaad u diyaarisay maxaad siid maxaad ku guursan ma garanaysaa gabadha xoola u tabco ma garanaysaa waxay rabtaa noqoto xoolaha saad rabto ku shaqee ama qoryo soo gur ama makhaayad ka shaqee ama haddii ala ku roon yahay ma garanaysaa bajaaj wad shaqada meesha ay kaa soo gaarto haysta ka qabo ma kaloo hadda maartay gadaal kaga soo dari doona haddana booral ahaan ugu diro munaasabada dhexdeeda soo wax ku maamaadaa haddii gaajo guriga irinta nin gabar iyo wiil gabar baa isqaba hadday gaajo irinta ka soo gasho jacaylku gadaal buu ka baxay irinta dambe buu ka baxaa baa leeyahay hadday gaajo timaado jacaylku irinta dambe buu ka baxaa marka walaalayaal wiilashow gabdhaha wax tabcada gabdhahow idinkuna intaasoo kuna laygu mehersho dahab hebel ha la isiiyo hebla kanaa loo dhigay waagii hore waxaan garanayaa aniga waqtigaygii wixii iga horreeyey wiilkii gabadhu markay isdoortaan oo isku qancaan xoolo lagama fokato waa la wixii dhalay bay iska doonan jireen ama inta la soo guursadaa markaas siira laga bilaabi jiray oo inta raar iyo guri loo dhiso oo maarta ariga kaala loo soo aruursho saas reerkooda ku dhisi jireen marka waxa weeye dhaqankan ama hebla maxaa loo dhigay arooskee laga tumay gabdhayow ninba waxa uu yiraahday sac inta uu heeso wuxuu yiri sac oo maarta geesi waaweyn oo haraadi oo gadaalooda ka soo luuda oo maarta gaabiya markii loo soo socoto oo markii la geedka timaad hardig maarta caloosh ka geliy buu u hees wuxuu yiri inaad haraad tahay horaan ka cab tahay oo lada hardido iskuma heshide waray kala daa inaad haraad tahay sac iyo inaad haraato gadaal soo luuto horaan ka cab tahay markii ladu ceelka timaadana sac ugu horeeyo cabba aad noqoto oo lada hardido ladana aad geeska ka dareeriso iskuma heshide waray kala daa marka gabdhayow reer baa rabnaa oo ma garanaysaa wadankii dhibaatada ka jirta wiilashii waxa ma hayaan oo markaa waxaan rabnaa in maartay kontonku laygu mehersho oo guri hebel la ii dhigo oo dahab la ii dhigo iyo taa isma qabanayso iska ilooba waxaas dhaqankaas inta la soo gaabsho maartay guurka iyo hawsha hoos ha loo dhigo oo maartay hala dabciyo insha Allah maartay intaas ku soo joojinaya insha Allah waxaan geynayaa ma garanaysaa waxaan geynayaa YouTube-kayga Saciid Erig ayaan geynayaa kanaalkaasaan geynayaa insha Allah maartay wixii ra'yigiina haddii casharkaani fiican yahay la ii soo sheego haddii xun yahayna la ii soo sheego waan joojinayaa aad iyo aad baan maartay
idiin soo dhaweynayaa. magarasa videoga hoostiisa ayaan whatsappkayga ku qorayaa, halkaasaad igala soo xiriireysaan haddii alla idmo. aad baan idiin soo dhaweynaya. waa mahadsantihiin.